بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. درسiga kan walaaluhu ay qoondeeyeen waxay ku tilmaameen al-ilxaad wal-mulxiduun. waa darsi aan ku saabsisnayn waxyaabihii waayeelkeenna lagala hadli jiray. waxaa laga yaabaa inuu yahay duruufaadkan cusub iyo dhulkan la yimi iyo ardada tan aan diintooda iyagoo wax badan ka aqoon shubahaadku ku soo horeeyeen inuu muran badan ku keenay. waan isku dayey isagoo aada u kooban inaan wax ka idhaahdo. ciddii faahfaahin u baahanna waxaan u tilmaamayaa netkaad ka heli kartaan isagoo 5 muxaadara oo af soomaaliya. cumuuman ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo jiritaankiisa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay afillaahi shakun faatir الsamaawaati wاlard. afillaahi shak, ma ilaahay baa shaki ku jiraabaa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala isagoo ah maxay faatir الsamaawaati wاlard, cirka iyo dhulkaba kii uumay isagoo ah. ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy وmin الnaasi man yujaadilu fi اllahi bغayri cilm waytabicu kula shayطaani mariid. dadka waxaa ka mida baa ilaahay yidhi mid ilaahay ku dooda oo shaydaan kastoo madax adag la raaca. waxaa kaloo ilaahay tilmaamaya وmin الnaasi man yujaadilu fi اllahi bغayri cilmin. dadka waxaa ka mida kuwo rabbi subxaanaه wa tacaala ku doodaya bغayri cilmi walaa hudan walaa kitaabi muniir, iyagoo aan aqooni agtooda oolin. yacni ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa mas'aladaa dood kasta oo ka timaada waa dood jahli ku salaysan, aqoon kuma salaysna baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala bغayri cilm. sulطaan ama kitaab hore oo masalada tilmaamaya waxaasoo dhami ma jiraan baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala. haddaba haddaan warka idiin soo koobo, waagii hore fi taariikh malaaxidadu ama dadka ilaahay diida afraad bay ahaan jireen midhan. weligoodna waxay ahayn minority group aada u yar. marka falsafadda la joogo fi lfalaasafa minority group bay ahaayeen oo midhadh yar baa taariikhdu tilmaamta. marka cilmiga la joogo sayniska midhadh yar bay ahaayeen. diimaha iyo baabkeeda iyaga iska bedda. casrigan hadda ugu dambaysa siiba yurub, oo xataa yurub laba mid aha maraykanku. maraykanka waxay yidhaahdaan 2.1 up to 4%. maraykanku wuu ka diin badan yahay yurubiyanka, laakiin yurubiyan barometerkaa tilmaamaya around 20% inay yihiin, boqolkiiba 20. waana aragti dhallinyaradu marar badan ay ku gafaan. sababtuna waxay tahay iyagoo shubahaadka loo sheegayaana uu tiro bato, adilada cilmiga ay helayaana ay koobnaato. haddaba markaynu dib ugu noqonno cilmi اlfalsafa ama ku noqonno adilada caqliga ee masaa'ilka lagaga warramo, waxay ka warramaan culammadii muslimiinta hore waxa loo yaqaano daliil اliijaad ama daliil اlkhalq ama daliil اlxuduud. qoladan dambe iminkuna ay u bixiyeen cosmic argument, burhaan اlkowni. saynisyahannadan dambe oo dooda ka soo qayb galay ayaa iyana waxay ula baxeen cinwaan la yidhaahdo cosmic argument. cosmic waa cosmology, waa burhaan اlkowni. waxaa kaloo jira burhaan laga warramo ama daliil kaloo laga warramo oo la yidhaahdo daliil اlcinaaya aw daliil اlgaaya أو دليل التنظيم أو النظام أو النظم
culamadan dambana ay ku tilmaamaan design argument. waxaa kaloo jira daliil kale ay ku tilmaamaan fine tuning الضبط الدقيق. waxaa kaloo jira daliil kale ay ku tilmaamaan anthropic ama almabda albashari, waliba strong anthropic theory-ga ama daliilka nooca ku saabsan. adilada ay sheegayaan oo dhami waa adilo caqliya. waxaan isku dayi doonaa 2-3 wixii aynu awoodi karna inaynu soo bandhigno. aan ka warranno daliilka koowaad ee design argumentka. design argumentku waa daliilu tasmiim ama daliilu alcinaaya ama daliil alghaa'i. waxaa daliishanayay laga soo bilaabo falaasafadii hore, مثلا أرسطاطل iyo Plato iyo saddexdii filosofiga Greek-ga hore la tilmaami jiray, saddexduba design argumentka way daliishadaan. falaasafadii ka dambaysana saasay u daliishan jireen ilaa ay laga soo gaadhayo culamadii diimaha, khaasatan abraahimika ama yahuud nasaara. muslimiintu dadkii ugu badnaa ee daliilkaasi balballaadhiya inay ahaayeen. mar labaad can طariiq ibn rushd iyo kutubtiisii buu dib ugu noqday yurub oo thomas aquini shanta daliile kitaabkiisa laahuudka la yidhaahdo uu kaga warramayo. waa daliilkiisa shanaad. waa isla culammada muslimiinta in badan ay ka naqliyeen immanuel kant ama thomas aquini ama kuwaasi waa adiladay daliishadaan ama soo naqliyaan buu ka mid yahay. waa si kale haddaynu u dhigno william pele nin qoraaga ingiriiska ahaa isna masaladan ka warramayay 1802 waa kuwii buugga qoray ay u bixiyeen natural theology. waa ninkii lahaa umhuulada ay ku tilmaamaan watch analogy ama tusaalaha saacadda. daliilkani muxuu yahay? daliilkan macnihiisoo dhammi waxa weeyaan haddaad aragto wax nidaam leh, wax design leh, haddaad aragto wax design leh, systematic ah, nidaam samaynaya haddaad aragta bay yidhaahdeen, macnaheedu waxa weeyaan laabud in designer uu ka dambeeyo. fawdadu bay leeyihin wax ma design garayso. assudaf ama anarkigu ama coincidence iyo chance isku beegantadu af soomaaliya haddaynu ku nidhaahno ma design garaysa ama ma qaabayso wax nidaam ah. taa macnaheedu waxa weeyaan adduunka aynu ku nool nahay ma designed ba mise waa chaos? dunidan aynu joognaa ma duni designed ba dhan kastoo laga eego? wax kasta oo dunida korkiisa yaalla design ma leeyahay mise ma laha? hadduu designed yahay wa kullu munadamin laa budda lahu min munadim bay yidhaahdaan. wax kastoo nidaam leh waa inuu yeeshaa cid ka dambayso oo nidaamisay. markaynu masalada tan ka warramayno waa daliil ilghaa'i waxay yidhahdaan. maalan aristo wuxuu qabaa alfaaciliyaat alarbaca waxay ku tilmaamaan oo ah shay kasta buu leeyahay su'aalo afraad isweydiinaysa. yaa sameeyey? maxaa laga sameeyey? qaabkee loo sameeyey? maxaa loo sameeyey? sabab. maalan miiskan hortayda yaalla questionka koowaad waxa yaa sameeyey? nijaar baynu nidhi. muxuu ka sameeyey? loox iyo biro. siduu u sameeyey? dhisaynka afarta adin iyo waxaasileba u sameeyey. qardka loo sameeyey waa maxay? maxaa loo sameeyey? in lagu muxaadareeyo, in wax lagu cuno, inaad saa doonto dheh. waxay yidhaahdaan shay kasta afartan alfaaciliyaat alarbaca ay ku tilmaamaan bay ka keenaan. haddaba design
ama qaradka loo sameeyey waxay gaayada loogu talagalay waa shayga ugu horreeya ee laga fekero waana shayga ugu dambeeya ee natiijada ee la gaadho haddaan si kooban u tilmaamo haddaba daliilka kan waxaynu leenahay adduunku dhammaantii waa munadam waa designed markaynu leenahay waa designed anything aad soo qaadato maalan unugga yar ee bini aadamku waxay yidhaahdaan per second 2000 amino acids buu sameeyaa hadda waa per second kasta 2,000 oo amino acid buu sameeyaa unugga yari hal unug xataa unug bidaa'iya haddaad soo qaadato bay yidhaahdaan new york design wuu ka weyn yahay bay yidhahdaan siduu u samaysan yahay waa selka unugga yar selkaasi bay leeyihin warshadaa ku yaalla meelo biyo laacabbaa ku yaalla meelo raashinku maraa ku taalla meelo qashinka tuurtaa ku taalla everything designed weeyaan waxay dhahaan selka yar dee d n a-diisa ku jirta informationka ay sidaa 500,000 c d baa lagu shubi karaa bay idhaahdaan ama haddii qoraal loo bedelo kutub bayna alardi waاsamaa la tixi karo ayaa informationka ku jira selka ma aha d n a-giisa yar informationka ku jira wuxuu buuxin karaa bay idhaahdaan kutub maa bayna alardi ila asamaa'i buuxin karta idan dunidoo dhan waa designed أي شيء adeegto ولذلك baa ilaahay subxaanaه وataعaalى qur-aanka in badan waxa laynoo tilmaamaya أwalam yanduruu miyaydan arkaynin baa la yidhi cirkan iyo dhulkan iyo waxa alla abuuray maydan arkayn baa rabbi tilmaamaya subxaanaه وataعaalى oo maxaa ku jira ilaahay subxaanaه وataعالى wuxuu leey qul اnظuruu maada fi الsamaawaati والأرضi وma تغني الآيaaت والنذر can qowmi laa yuؤminuun ilaahay wuxuu ina leeyahay bal eega mada fi الsamaawaati والأرض cirkan iyo dhulkan iyo waxaan qaabkay u samaysan yihiin eega dabeetana ilaahay wuxuu leeyahay wama تغني الآيaaت والنذر can qowmi laa yuؤminuun aayaadka iyo digniinuhu maxay ka tarayaan duul aan waxba rumaynayn baa ilaahay ina leeyahay subxaanaه وataعaalى ilaahay wuxuu ina leeyahay أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إلهي وحده الماما يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق واربردوك الصعدة وحا اكتان سيدي إلهي دولك أبوري رات راعة waxaan leenahay qur-aanka tirada badan leh iyo nusuusta tirada badan leh waxa inoo tilmaamaysaa inaynu eegno dunida tan dunidan markaa wax kasta oo la soo qabto wax allaaliya waxa aqoon bini aadamku uu gaadhay oo dhammi waa faham uu fahmay designskay dunidan u design garaysantay saynisku dhammaantii waxay dhahdaan waa taqliidun liabiica microscopiska iyo waxaan wax eego oo dhammi waa ishaa la taqliidiyey waxa duulo oo dhammi shimbir iyo xayawaanaadka yara duula la taqliid in every aspect waxay dhahdaan waxaynu qabannaa waa taqliidun liabiica nature-ka wax ka mida la fahmay siduu u shaqaynayo dabeetana wixii baynu wax u eeg tijaabinay haddaba su-aasha isweydiinta le waxay tahay aqoonta aadanahoo dhammi hadday geology tahay hadday physics tahay hadday chemistry tahay hadday architect waxay doontaba ha noqoto waxaynu fasiraynaa designka dunidani siday u design garaysan tahay su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay haddaynu qaacidada koowaad isla garanno addunya kullaha munadama dunidan design baa ka muuqda tasmiim baa ka muuqda farsamo jaangoyna baa ka muuqata su-aashu waxa weeyaan haddaba man ilmunadim yaa nidaamiyey designkan inoo muuqda yaa nidaamiyey jawaabuhu waa inaad tidhaahdo cid baa nidaamisay ama se waa inaad tidhaahdo coincidence wuxuu isaga dhacay by chance iyo maahae cid baa nidaamisay waa labada waxay dhahaan qolada falsafaddu
daliilka waxa ugu fiican markaad kaagana sugto kiisana buriso yani qofku wuxuu isagu daliil ka dhigtayna marka aad buriso adigu waxa daliil ka dhiganaysaa markaad sugto bay yiraahdeen waa burhaanka halka ugu sarreysa aqoomaha maanta dunida yaalla dhammaantood waxay ku salaysayeen ama qaybo badan maalan archaeology aqoon la yiraahdo maqasheen dhul baa la qodaa meel baa la helaa guriyaa loogu tagaa ma waxa la yiraahdaa guriyaha kan cid baa dhistay oo xadaarada cidii ku noolayd baa la raadciyaa mise waxaynu yiraahdaan dhagxantii la qodayay buu la mid yahay markaynu guriga tagno markaaba waxaynu ka fahmay wixii hore aynu qodaynay iyo meeshan aynu tagno waa kala laba waayo waxay leeyihiin waxaan aynu tagnay design baa ka muuqda architect baa ka muuqda guriyo la qaabeeyay si u dhisan meelo la kala xidhxidhay waxa ka designku wuxuu daliil u yahay bay leeyihiin in dad meeshan ku noolaan jiray cid samaysay inay jirto cid ka dambaysay inay jirto مثلا cilmiga la yiraahdo criminology dambiga marka la baarayo aasaarta meesha laga helay inta la isu geegeeyay baa la yiraahdaa ma wax accidentally isaga dhacay ba mise waa crime cid samaysay raadraaca sawirradan aynu meesha ayaynu ka fahmaynaa wuxuu ma munadam buu ahaa mise ma aha ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala afaman yakhluqu kaman laa yakhluq afalaa tadakkaruun baa ilaahay leeyahay ka wax abuura ee wax design gareeya ee khalqiga sameeya iyo miyay isku mid yihiin baa ilaahayna yidhi kaman laa yakhluq mid aan waxba abuuraynin by accident iyo by chance wax iskaga dhacay afalaa tatadakkaruun baa ilaahay leeyahay war miyaydan garaad yeelanaynin miyaydan caqliga isticmaali karaynin warabbuka yakhluqu maa yashaa'u wayakhtaar ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu doonu rabbi abuuraa wayakhtaar waanu doortaa designka isagaa doorta inna kulla shayin khalaqnaahu biqadar wax walba waanu jaangoynay baa rabbi tilmaamaya subxaanahu wa tacaala wax waliba waa mawsuun wax waliba waa biqadarin macluum haddaba design inuu shaygu yahay maxaa shardiya markaynu maxay ka helaabaynu odhan karnaa waa designed shayga kale waa musammam waa shay la jaangooyey waxay idhahdaan saddex shardi waa in laga helo kow ajzaa mutafariqa qaabab waxyaabo kala googo'an oo laysku dardaro laysku taxay waa inuu shaygu ku jira qaabka laysugu taxay waa inuu tanaasuqu leeyahay wax sidan functionka ku samaynaya ama shaqada ku samaynaya hadaf iyo gaayo laga leeyayna waa inuu jiraa waxa kale inuu qabto maalan gaadhaynu aragnay gaadhigu waa caag iyo bir iyo wax isku waayir iyo wax tiro badanoo laysu geegeeyey waa ajzaa kala nooca laakiin tanaasuq qaab baa laysugu geegeeyey oo haddaadun caag iyo bir iyo isdul saarsaarta dee gaadhi noqon mayso ee qaab baa loo taxay ka saddexaad hadaf baa laga lahaa inuu functioning noqon karo oo haddii taayirka horena xaggaa u wareegaya ka kalena xagga kale u wareegaya dee gaadhi ma noqdeen wax soconaya ma soo baxeen waa hadaf baa laga leeyahay dr michael behe waa intelligent design qoladan le macadka la yidhaahdo discovery institute waa macad seattle ku yaalla oo ay niman saynis yahani isugu tageen oo iyagu fikradoodu waxa weeyaan war dunida tani waa la design gareeyey laa darwinism walaa waxaana sheegaysaan oo dhami kama jiraan waa saynis yahana diin kama warramayaan waxay leeyihin markaa waxa la yidhahdaa intelligent design qura maaha waa design dakaa uu ka dambeeya bay leeyihin basamaat ama tawqiicaati dakaa baa ka muuqata bay yidhahdaan saxeexii caqli badnidaa ku yaalla bay leeyihin meel kastoo aad daraasayso caqli weyni inuu sameeyey saxiixa baad ka akhriyi kartaa bay qabaan wuxuu leeyahay fikrad la yidhaahdo irreducible complexity waxaa jira buu leeyahay ashyaa haddii wax ka mida laga saara aan shaqaynayn marka waana complex maalan isagu wuxuu soo qaataa tusaalaha bahalkan lagu dabo maxaa la yidhaahdaa jiirka bahalka yara lagu dabaa waa dubbo yar gariirad bir yaroo qabata
meel wax loo sudho waa intaa mid waliba gaarkiisa qiimo ma leh ama mid ka mid ah haddii meesha laga saaro tasmiimkii wuu lumaya laakiin marka la isku wada daro ayuu yahay waxa qabta maxay raadka ama jiirka qabta wuxuu leeyahay kownkoo dhammi waa wax saa isugu xidhan oo wax ka mid ah haddaad ka saarto anything aad daraasaysaa buu leeyahay waxaa kaloo jira nin william dambeski waa nin isaguna waa mathematics iyo physics ayuu labadaba PhD ku sitaa theologyna master buu ku sitaa macadkaasuu isna ka tirsan yahay wuxuu leeyahay isaguna fikrad la yidhaahdo specified complexity tacqiid ama wax adag oo haddana specifications gaara leh muxuu uga jeedaa dib markaan masalada sudafka imaada baan sharxi doonaa waxa kale waxaan uunu dan leenahay adduunka waxaynu science dhigaynoo dhammi wuxuu inoo dhigayaa inuu adduunkani munadam yahay biology dhig chemistry dhig physics dhig everything aad daraasaynaysaa waxa uu tilmaamayaa walidalik baa weedhaha caankee uu leeyahay albert einstein fiisiksiyaankii dunida ugu weynaa waxaa cajabta lee dunidan yaallaa wuxuu yahay buu yidhi inuu adduunku yahay wax la fahmi karo wax la fahmi karo waa maxay yacni wax designed oo qaab aad u raacda leh hadduu kaws ahaan lahaa buu leeyahay cilmiba maynan garaneen dee haddii biyaha markaad kuleeliso marna ay 100 ku kululaadaan marna ay 0 degree ku kululaadaan cilmiba ma jireen dee waayo qaab loo raaca ma jireen wuxuu leeyahay adduunku wax la fahmi karo inuu noqday ayaa wuxuu yahay buu leeyahay waxa ugu weynaynu garanay waxaan leenahay marka dunidan wax kastoo aynu eegnaa waxa ka muuqda in design ay leedahay su-aashu waxa weeyaan yaa design gareeyey imaa inaad tidhaahdo super power supreme power allah ilaah weyn ayaa design-kan leh ama se inaad tidhaahdo waa coincidence waa sudaf waa just by chance waa evolution waa wax uun nasiib ku dhacay dhowr tusaale aan idin siiyo waxay yidhaahdaan haddaad aragto derbigaa irbad ku taagan oo irbaddaa daloolkeeda dambe irbad kale ku jirto waa irbad derbigaa mudday daloolkeeda dambe irbad kale ku jirto oo qofku yidhaahdo nin sharp shooterah dhugyahana ayuunbaa intuu toogtay irbadda dabada ka geliya ma rumaysanaysaa waxaynu odhan karnaa caqligu ma diidi karo mustaxiil maaha waa iska suurtagal intuu maanta oo dhan tijaabinayay 10 sannadood intuu ku waday inay mar u gashaa waa logic saxankaa maaha waa wax dhici kara maye wuxuu yidhi mid kale wuxuu ku yidhi wiil yaroo hooyadii indhala-aan ku dhashay oo aan weligiiba wax arag ayuunbaa tuuray unoo irbadda inta loo dhibay irbadda kale dabada ka geliyey ma la aqbali karaya waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo maybe once in a blue moon inay dhacdaabaa dhici karta mar uun inay gashay okay waxaynu u nimi 10 irbadood oo mid waliba number leedahay from 1 to 10 oo midba mid dabada kaga jirto haddii layna yidhaahdo kiish 10 irbadood ku jiraan oo numberku ku qoran yahay nin loo dhiibay gacantuunbuu geliyaa number 1 unbuu soo dhuftaa wuu ku tuuraa way gashaa gacantuu ku celiyaa number 2 unbaa soo baxda wuu ku tuuraa way gashaa ma rumaysanaysaa 10 irbadood baa ku jira irbad kastaa number bay leedahay laakiin waa la isku qasay inaad 10ka iyagoo consequencegoodii aad soo qabataa dee waa mas'alo mathematicisa soo maaha probability-ga maxaynu odhan jirnay 1/10 times 1/10 times 1/10 waa chance ah 1 divided by 10/10 ama 10 to exponent of 10 to power 10 ama hal chance ayaa suurtagala 10 zero la dhinac dhigay 10 zero that means waa 10 billion
10 bilyankii jaanis marka la sameeyo mar bay suurtagaltay in iyagoo isku xidhxidhan la soo qaban karo qolada ilaahay diidani waxay isku dayeen wax kasta oo dee maxaa diidaya bay dhaheen 10 bilyan inay bilyankii dunidu ku samaysantay mar haddaad tidhi waa 1 to 10 over 10 inay jaaniskaasi wax waliba sida tan u dhaceen maxaa diidaya waxaa jirta fardiya ay yidhaahdaan fardiyatu lqirada tusaalihii daayeerka Thomas Huxley the bulldog of Darwin Thomas Huxley waa usra mulxida waa qoys ilxaadka ku abtirsada odaygoodii waa Darwin saaxiibkii waxay u bixiyeenba bulldog of Darwin baa la odhan jiray kalbi alxaraasa ayga afka ballaadhan leh waa aygii Darwin bay ku naanaysi jireen Thomas Huxley baa wuxuu leeyahay haddii 6 ay tab la duldhigo bariga dee computer ma jirin haddii tab la duldhigo oo ay garaacaan for infinite time buu leeyahay waqti aad u tiro badan leh 6 daayeer hadday garaacaan oo garaacaan aakhirka qasiidadii Shakespeare inay soo baxayso maxaa diidaya buu leeyahay daayeeradaas ay bahalka u tumayaan in gabay Shakespeare uu leeyahay aakhirka uu soo baxo waa logic ayuu ku dooday المجلس القومي البريطاني للفنون والعلوم ururka ingiriisku leeyahay cilmiga iyo fanka ayaa yiri oo maynu tijaabinaba maxaymka waxa loo oranaya daayeeradii mise iyaga simulated computerized la keenay keyboard baa loo dhiibay 26 eray iyo 4 calaamadood ay ku jiraan dabeetana bil bay garaacayeen waxay yiraahdeen inta markii la eegay even one word of ingiriisi ma soo bixin bay yiraahdeen حتى في إنجليز كأريجا وير بيران letter كأيه ولا بدر دنعبا book مركات هذا هذا في إنجليز كوا one word سماه dash إن لبدر دنعبا dash كالرأس سيء one word even بيلين لبدر دنعي كالرأس أنت كما صابح بيت المامية هذا بوحة عجب له أحدهم بان كان وحي شيء يعني أنا وح معقولة هين بيري وعدتين أنا وحي لم يتاي إذن هو يرى هذا مطبعة دي بريجي هره صنادوق بقول شراء مطبعة ده letters كي كشراء A B C D رياضة تنو كمان ملايين بقول شراء صندوقيه مركب بوجا مركب لطابع عيو ده تنديد بالسماية حرفها لساق هذا اللي دشينيه oo meesha lagu safay hadhowna badbacda wixii ku garaacaysa waraaqdii qoranba markaa soo baxaysa wuxuu yidhi haddii layna yidhaahdo magaalada fulkaana ka qarxay ama dhul gariir ka dhacay sanaaduuqdii madbacadda ayaa bug jiroo qaraxday dabeetana dhulka markay ku dhacday wixii ka soo baxay 10 kelmadood oo af ingiriisiga ka soo baxay haddii la yidhaahdo عقله وحبب بإنسان ما يكلمت هالكاس أو أفر رئيسه تكتيه مثل هالكا كنت هدي الله يرادو لكن هدي الله يرادو بيقول طبعا كي كلمة دوت سنتين يسكو حدا بيا هاي جامع بيا سكول كي قبطوك صار نقضي بقى صابح بي ما هو ملاين إنسان إنه earthquake قرية جامع بيا سكول كي قبطوك صار نقضي وعدوا حكسي يا بدل الله إنه قون نداحنا قرح حاسمر كودعه أيوم باي coincidence هل بوك أو شن بقوله بيتشة أو قبي أو اسكت حنون بابا قرمي أو يا يناقري earthquake يناقري للجرير كي يمد بعدي مركز يسوت جان بوك بيقرأ قبي ما لقبلي كرا يا بعض ملاينس نلاشم بيلين وحوي ير مثلا هيموغلوبين تشير كده كشرت دي جينا هيموغلوبين وشن بقوله يسقالي يصدنا أمينو أيسيد dunida 8 nooc amino acid baa jira jirka bini aadamku 20 quro aqbala 20ka halka amino acid kasta waa 3 nooc waa mid guran iyo mid midiga iyo mid neutral ah inaga jirkeena ka ku jirto dhammaan waa ta guran chaaniska intaas ku samaysanto in
539 amino acid oo laga soo dhex saaray 80kaasi nooc oo 20 ka mid ah la doorto oo waliba tabidixda la wada doortaa waxay leeyihiin waa chance aan suurtagal dunida korkeeda ku ahayn idan it should be decided coincidence wax ku dhici kara iyo mutation wax ku iman kara maaha oo waayo waxay leeyihiin cimriga dunida aynu maanta u hayno marka la tiriyo waqtiga ay u baahan tahay way kala badan yihiin sidee u kala badan yihiin Gerald Schroeder odayga la yiraahdo waa professor nuclear MIT dan jaamacaddii Mareykanka professorada yuhuudda ugu caansan ka mid ahaa ayaa calculation sameeyay wuxuu yidhi gabay baa qarax soo saaraya waxa kanaan iska badayna maanta buu leeyahay xisaabtu way horu martay waxaanina waa wax la calculate garayn karo aan calculation kaba samayna buu leeyahay gabay uu leeyahay ninka la yiraahdo Shakespeare oo sonnet la yiraahdo shall I compare there ka bilaabma gabaygaas buu soo qaatay gabaygaasi waa 480 eray ayuu ka kooban yahay 480 letter buu ka kooban yahay bay yiraahdaan wuxuu yidhi chance-ka uu gabaygaasi ku samaysmi karaa waa 1 divided by 10 to power of 690 that means hal chance ayaa ka suurtagala markaynu haysano 10 la dhinac dhigay 690 bir sidaa loo dhinac dhigay oo chance-kaasi ma jira markaa aan idhaahnaba waa 1 balaayiinka aan la akhri karaynin maxaynu leenahay la akhri karaynin waxay leeyihiin jibiska dunida yaaloo dhan every party every atom kownka ka jira bay leeyihiin haddaynu particles ka dhigno oo zeroyada mid ka mid ah saarna ma dhamaan ma samaysmaya bay tilmaamayaan aan si kale u tilmaamo William Dambeski gaan idin sheegayay nigaan idin waa mathematics PhD iyo philosophy PhD iyo theology ayaa wuxuu leeyahay aragti la yiraahdo goormo probability-gu 0 noqda goormo nonsense yahay oo aanu lagu dhuuman karin waxaan chance ba ku jiraba waxay maanta isku waafaqsan yihiin big bang-kii laga soo bilaabo dunida cimrigeedu inuu yahay 13.7 billion years theory of big bang markaynu tagno waxay rumaysan yihiin universe-kani inuu jiray 13.7 billion years plus or minus 2% bay yidhaahdaan yacni in ka yar 14 bilyan oo sannadood waxay yidhaahdaan 13.7 bilyan yearska haddaynu second isu beddello imse second bay la mid noqonayaan waa 10 to power of 25 seconds duniduba intaasoo second bay jirtaa bay leeyihin 10 to power of 25 seconds dunida bay yidhaahdaan kownkan culayskiisu intuu leegyahay calculationiskooda waxay ku tilmaamaan 10 power 58 kilogram inuu yahay in particles haddaynu u beddello waxay leeyihiin waa 10 to power of 78 almost 80 iska dheh 10 to power of 80 inta ugu yar ee xadath dhacda ay dhici kartaa timeka ugu yar ee dhacda dhici kartaa waa intee waxay yidhaahdaan waa 1 centimeter lightku inta uu kaga gudbi karo si kale haddaan u tilmaamno waa 10 to power of 45 of a second haddaba wuxuu leeyahay dunida wax allaaliya waxa universe-ka particles jira haddaynu mid walba jib shaqaynaya ka dhigno dunidu intay soo jirtay oo dhan waqtiyana siino chance-ka uu ku samaysmi karaa chance-ba wuxuu suurtageliyey waa 10 to power of 150 yacni waa 80 plus 25 plus 45 si kooban haddaan idinku sheego macnaheedu waxa weeyaan chance kasta oo ka badan 1 to 10 to power of 150 dunidan aynu joogno suurtagal kama aha buu leeyahay
duni ka badan iyo waqti ka badan iyo waxaasaynu u baahanay marka haddaynu rabno dhacdo dunidan ka dhacday limitkaa waa inaanay ka bixin gabayga Shakespeare in la sameeyana waxaynu nidhi waa 690 waxaasoo dhan markaan isku daro idin tilmaamaya waxa weeyaan dunida tan probability ma yaalo probability ay ka suurtagaltay nidaamka dunida ka jira Roger Benson professor of mathematics physics waliba nimanka seerka la siiyey ka mid ah Sir Roger Penrose ayaa waxa uu yidhi waxaan xisaabinayaa intay suurtagal ku tahay dunida in nololi coincident ay ku iman karto soo lama laha nolosha evolution ko dhan baan aqbalay haddaad tidhaahdo unuga koowaad siduu u samaysmaya halkaasay beledu ka bilaabmaysaa cirku ka soo dhacay meelba kownkalu inoogay waxaasoo sheeke bereley xal baa la waayey wuxuu leeyahay haddaynu idhaahno material unba intay isu tagtageen badda iyo ciiddeeda iyo waxaasaasay isugu tegtegayaan akhiiran unugii koowaad sameeyey unugaas unug noolaahi chance intee leeg buu dunida korkeeda suurtagal ka yihi mathematical calculationka markuu waday wuxuu leeyahay Penrose waa 10 to power of 10 to power of 123 waa saddex iskor saaran haddaad xisaab ahaan tidhaahdo 10 lagu dhigay 10 saddex qudha la dul saaray waa imisa waa 10 to power of 1000 halkaad 1000 3 qudha ka dul dhigtay ayuu wuxuu dul dhigayaa 123 dadniin soo waxaan afkana laga odhan karin qoraal lagu qori karin macnaheedu waxa weeyaan chance dunidan ma yaalo coincidence ay ku samaysmi kartaa maxay hal unugu uu ku samaysmi karo Anthony Flew waa mulxidkii ugu weynaa qarnigii 20aad ee dunida soo mara 65 sanadood buu mulxid ahaa from 1950 doodaha ugu badan ee ilxaadka waa ninkii matelayay mulxidiinta يعني وأضيقوا ذا هرسن شرين كون يرير هذا قايليو دمي دو كنسيو حالا هذا سام هارسيو كوحدا والبن بلانتيغا ولا يد ونويس يسي أدلة ملاحبين ويك قايل بدنيني كوي هرا كما أدلة بدنبوت المامية كوحدا سواني كي هرسن شرين أنتوني فلو مركو سيديتان دافي ayuu 2004 yiri there is a god ilaah baa jira markaasay ku qayliyeen oo yiraahdeen aakhiru ka baqay markaasuu yidhi aakhiraba weli ma rumaysniye ee wuxuu ma rumaysnayn in dunida tan cid abuurtay jirto markaasay yidhahdeen wuu asaasaqay markaasuu buug qoray la yidhaahdo there is a god 2070 awliya adillada ka jawaaba aniga iska kay dhaafay inaan asaasaqay iyo inaanan asaasaqin adilladan qoraya ayaa adillada ka jawaaba marka soo duuduubo wuxuu tagay Anthony Flew wuxuu tagay Richard Schroeder dabeetana gabayga Shakespeare barsaad u xisaabisay tusbuuri markuu tusiyay ayuu wuxuu tilmaamay mubarhanatul qirb tusaalihi daayeerka iyo wixii aanu sheegi jirno dhami waa kawma min an-nafaayat wa qashin la ururiyay yani mathematical proof kana wuxuu cadeynaya design dunidan inay tahay wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala u design gareeyay oo munadama waxa Harun Yahya ayaa bugisan creation kaba wuxuu tilmaamaya waxay la mid tahay buu yiri warka ay akhrinayaan iyadoo la yiraahdo beerta raashinkii yaalay beertii markii la gooyay midhihii meesha la dhigay ayaa bam lagu dhuftay dabeetana raashinkii markuu kala firiray ayuu jawaana galay jawaanadiina gaadhun bay ku dul rasaysmeen do you believe that ma rumaynaysaa inta waxa ka liita buu leeyahay inaad rumayso dunidan isutfay ku timi yani kaba ka chance badan buu leeyahay mathematically hadaynu eegno ولذلك يا بول ديفيس theoretical physicist waliba mulhid ayaa wuxuu leeyahay waxa aad ka u yaab kale waxay tahay buu yiri dunida waxaynu rumaysanay buu science yahanadeennu inay big bang ku tabi big bang waa maxay waa qarxi weynaa Soomaha waa singularity waxa la yiraahdo yar ba qarxay haye
markaasay oo dharid noqotay macquul maaha buu leeyahay qaraxa maxaa ka dhasha fawdiya dee kaw soo maaha hadduu qarxo waa in midhba meel ku dhacaadee inuu wax systematic soo baxa maaha buu leeyahay inaynu xisaabino nidhaahno dunidoo dhan waa systematic ka yimi qarax waxay burinaysaa buu leeyahay kaws baa order dhala baynu leenahay buu yidhi tandiim dhala waxaan ku soo koobayaa marka mar hadduu wadaadkan halkan soo fadhiistay wakhtigaa kaa dhammaaday baanu fahmay waxaan idinku soo koobaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina leeyay inna fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laآaayaatin liuli lalbaab abuurkan cirkan iyo dhulkan iyo waxaanaan abuuray baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala aayaad bay ugu sugan yihiin duulka caqli leh warku wuxuu ku kooban yahay أحد الملاحدة أما نداهدو وأغنوستيك اللا أدريين وديفيد برلينسك أيا وحولي هاي markii uu qoray Richard Dawkins buugii sanaa wahmu lilah God Delusion markuu qoray ayuu wuxuu qoray sanaa buugu ku radinaya uu bixiyay Devil's Delusion Devil's Delusion kiisa waxa uu ku tilmaamayaa uu leeyahay anuu garan maayo buu isagu leeyahay ilaah ma jira iyo ma jirada ka hadli maayo laakiin one thing baan certain ahay buu leeyahay hal xababa xaqiiqo ah qolada science oo dhama hadday isu tagto ilaahay ma jira inaanay caddayn karin buu leeyahay waa xaqiiqo ah buu leeyahay professor kani qoladaas oo dhama hadday isu tagto waxaan certain ahay buu leeyahay inaanay proof garayn karin inaanu ilaahay jirin waxaan ku soo duuduubayaa darsigan maadaama aan dadku dhallinyarada u badnayn ee waayeel isaga badanya waayeelkuna ilaahay rumaysan yahay shubahaadkuna iskagaba yar yahay cidda shubahaadku ay ku taxan tahay iyaga waxaan u tilmaamayaa shanta cajladood ee ku jira ee masaa'ilkan si deeply aan ugu tilmaamayo laakiin cumuuman waxaan leenahay daliilkaasi oo falaasafadu adeegsato oo laahuutiyiintii theologisku adeegsadaan oo casriga kana ay adeegsanayaan culamaa'i saynis dhammaantii waxa uu tilmaamaya khalqigan aynu arkaynaa biduuni ilaah inaanu suurtagal ahayn sala allahu calaa muxamed wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin أكبر من المحاضرة يمكن أن يكون لكن محاضرة مهمة وقت